السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مركو رئيس وحا مهاسك الله سبحانه وتعالى. برامج كان ما انتو حكو سابسين يهي بوماتو لو يقانو ديابيتوجين او بوماتو عالم كدوانهان كسو كرورتي لكن فائدوين فربضان كله بهذا عافماتك waxaan rabaa inaan idin la wadaago bomaatadani waxa ay tahay waxa loo isticmaalo iyo faa'iidooyinka ay leedahay gabi ahaan inaan maanta idin sharxo iyo cases aan u isticmaalnay bomaatadani iyo caseskaasi siday u bogsadeen waqtiga gaaban oo ay bomaatadani dhaawacyadooda ay ku bogsisay ayaan si muuqaal ahaan idin la wadaagi doonaa sabiradooda iyo muuqaaladooda haddoo alla idmo insha Allah. waxaan kaloo rabaa inaan muuqaalkan uga faa'iideysto barnaamij caafimaad oo aan ku soo kordhiyay ummadda Soomaaliyeed guud ahaan dalka oo dhan. barnaamijkaasi waxaan ugu magac darnay Somali Medical Home Service oo adeeg caafimaad oo qof walba oo Soomaali dalka meel walba uu ka joogo qaasatan caasimadda Muqdisho uu heli doono adeeg caafimaad xaafadiisa uu ku heli doono qaasatan bukaanada la dhiban dhaawacyada oo 24 saac u baahan dhayma iyo wasaqda dhaawacyadaasi ku jiro oo loo yaqaano debridement in loo sameeyo u baahan in ay heli doonaan dhaymadaasi adeegyada kale caafimaadka ee la xiriira xaaladaha gargaarka degdega in xaafadooda loogu imaan doono waliba ay u shaqeey doonaan dad dhaqaatiir khibrad u leh oo qalimada guud ku takhasusay kalkaaliyaal xirfad badan u leh oo caafimaadka in badan kusoo dhex jiray. barnaamijkaasi ayaan qaybaha dambe muuqaalkeena uga hadli doonaa haddoo alla idmo insha Allah. inta muuqaalka uu ka dhamaanayo nala joog insha Allah. waxaan idinka codsanaynaa in muuqaalkan aad dhameystirataan oo aad si fiican u daawataan. qof walba oo muuqaalkan soo gaaray waxaan ka codsanaynaa muuqaalka share gareeyo like-na uu saaro haddii ay tahay markii kugu horeysay oo aad soo booqato page-keena follow dheh lana wadaag asxaabtaada. bomaatadani waxaa loo yaqaanaa diabetogen. bomaatadani waa bomaato ka kooban maadooyin fara badan oo ay ka mid tahay sida maado loo yaqaano bofin colostrum, waxay kala kooban tahay maado loo yaqaano bantanol, waxay kala kooban tahay maado loo yaqaano nanosilver, vitamin E iyo maadooyin kale. waxay kala leedahay bomaatadani awood loo yaqaano bactericidal oo waxay leedahay awood ay ku dili karto jeermisyada kala duwan saameyn ku leh dhaawaca. waayo dhaawac walba sidaan ognahay waxa dhaawacaasi sababa ama infection ku soo waxa waaye waa jeermiska nooc loo yaqaano bacteria iyo nooc loo yaqaano fungal. so marka bomaatadani waxay leedahay awood aad u xoogan oo loo yaqaano bactericidal. bomaatadani waxyaabaha ay qabato shaqooyinkooda waxaa ka mid waxay kor u qaadaa bomaatadani badashada iyo dayactirka ay sameeyaan unugyada jirkeena oo loo yaqaan caafimaadka wuxuu dhahaa tissue regeneration. waxay sameeysaa marka unugyada ugu badan ee jirkeena inay isbadiyaan unugyadaasi si meesha dhaawaca oo banaan ay u soo buuxsanto ay bomaatadani ka qayb qaadataa. waliba waxay leedahay awood xawaare aad u sareysa oo unugyada inay bataan ay sababtaa. waxayna ka qayb qaadataa bogsashada degdega oo ay dhaawacyada ay ku bogsadaan oo waxay leedahay wax loo yaqaano fast wound healing management wax loo yaqaano ay leedahay. waxaan idin tusi doonaa bukaano aan u isticmaalnay bomaatadani iyo bukaanadaasi isbedelada dhaawacyadooda oo degdega ay sameeyaan sida waqtiga gaaban oo ay dhaawacyadooda ku bogsadeen. waliba qaar aad la yaabi doontaan oo maskaxdiina runtii aad isweydiin doontaan bomaatadani waa maxay mucjisada goonida ay leedahay oo aad dhihi doontaan haddoo la idmo. bomaatadani waxaa loo isticmaalaa jirka meelo kala duwan. waxaa loo isticmaalaa finanka ka soo baxa wejiga, sidoo kale waxaa loo isticmaalaa baculada ka soo baxa bishinta qaybaha kore. waxaa kaloo loo isticmaalaa dhaawacyada la soo dirsa dadka sokorada qaba. sidaad aragtaan bomaatadan asal ahaan marka la hindisayay waxaa fikradani ay timaaday marka ay aadka u soo bateen dhaawacyada ku imaada dadka sokorta qaba. waayo dadka sokorta qaba haddii sokortooda la manage garey waayo ama la xakameey waayo sokorta waxay dishaa neerfaha jirka ay dishaa oo qofka dareenka xanuunada inuu dareemo ayay ka dishaa. oo marka qofkan waxaa la soo dirsaya wax walba oo dhaawac uu soo gaaro ma dareemayo oo xanuun ma dareemayo maadaama sokorta neerfaha ay disho. sidaas darteed marka qofka waxaa la arkay dadka sokorta qaba in dhaawacyada aad ugu badan yihiin. sidaas la ajligeed ayay saynis yahanada waxay ugu magac dareen diabetogen oo asal ahaan waxaa mostly loo isticmaali jiray dadka sokorta qaba. laakiin gadaal dab waxaa la ogaaday dhaawacyada kale sida finanka wejiga, buculada ka soo baxa bishinta qaybaha kore iyo dhammaan dhaawacyada jeexjeexyada in loo isticmaali karo. magaca diabetogen diabetes means waxa waaye sokor waaye sida ka muuqato. waxaan idin la wadaagayaa sawiro far badan oo aad la yaabi doontaan.
sawirkan hadda idin muuqda waxa waaye waa qof ciribta ka soo gaaray jeexjeexyo intaan la marin ka hor before bomatadani diabetogen application intaan lagu samayn ka hor ciribtii sidaas ay ahayd 4 isbuuc kadib markii bomatadani qofka uu marsaday ciribtiisa sidaas ay noqotay so before and afterward ujeedaan ciribta sidii u qurux badnaatay iyo spaceka jeexi weynaa siduu u buuxsamay sidoo kale bukaankan kale aad ujeedaan inta aan la marin dhaawaca lugtiisa uu soo gaaray waa sidaas ayuu u muuqday waa qof sokor qaba oo weliba rag ah waayo waxaan hore u sheegay sokorta waxay dishaa nervaha iyo dareenka jirka ay dishaa qofkana waxaa la sudarsaa waxaa ka lumaaya awoodda xanuunka dhaawaca uu ku dareemi lahaa marka intaan bamaatada la marin dhaawacii sidaas ayuu ahaa marka bamaatada la mari week kadib sidaas ayuu noqday isbuuca labaad sidaas ayuu noqday isbuucu dambeeyey qofka sidaas ayuu noqday marka waad dareemi kartaan bamaatadani awoodda mucjisada ay leedahay iyo sida dhaqsida leh oo ay qofka hilibkiisa ay usoo dhalinayso unugyada inay bataan ay ugu qayb qaadanayso waxaa kaloo idinla wadaagaa keeskan kale keeskan wuxuu inoogu yimid isbitaalka muddo bil iyo bar ka hor markuu isbitaalka inoogu imaanayay sawirkiisa sidan ayuu ahaa sida hadda idinkaga muuqato sidan ayuu u muuqday 2 isbuuc kadib markaan bamaatadan u isticmaalnay dheemo aan ku wadnay dheemada iyo bamaatada markaan isku wadnay 2 isbuuc kadib lugtiisa sidan ay noqotay 4 isbuuc kadibna waxay noqotay sidan anagoo bamaatadani si joogto u isticmaalayno waayo qofka mar walba oo loo dhayo ayaa bamaatadani loo isticmaalaa dheemada kadib after dressing ayaa loo isticmaalaa so 4 isbuuc kadib waxa waaye lugtiisii sidan ay noqotay marka waad dareemi kartaa bamaatadani awoodda ay leedahay iyo sida dhaqsida leh oo ay hilibka u soo dhalinayso waxa kaloo idin laga wadaagay sawiradan kale igana sidoo kale u jeedaan before qofkani sidan ayuu ahaa isbuuc kadib haddana wuxuu noqday sidan waad u jeedaan marka bamaatadani faa'iidada ay leedahay qof walba oo u baahan bamaatadani wuxuu ka heli karaa numberka ku qoran qaybta hoose muuqaalka waad nagala soo xiriiri kartaan xaafadada lagugu keenaya haddaad u baahan tahayna waxaa lagu sheegi doonaa haddoo alla idno meesha ugu dhow aad ka heli karto qof walba oo u baahan wuxuu nagala soo xiriiri karaa numberkaasi sidoo kale waxaan idin haynaa sidaan muuqaalka bilowgiisaan idinku sheegnay barnaamij cusub aan kusoo kordhiyay dalka oo loo yaqaano Somali Medical Home Service oo ah adeeg caafimaad oo aan ugu talagalnay qof walba oo Soomaali oo u baahan ama qabo baahi caafimaad oo la xiriirta haddii ay tahay dheemo oo u baahan yahay hadduu guriga u joogo qof dhaawac ah oo maalin walba dheemo in loo sameeyo u baahan ama isbuuci 2 mar ama 3 mar 3 maalin kadib ama 4 mar waqti walba u baahan yahay xaafadada lagu imaanaya waxaana ku shaqeynay dhaqaatiir ku takhasusay qalinka guud iyo dad ay kalkaaliyaal xirfad badan u leh caafimaadka waqti badan ku jiray waxaana lagu shaqeyn doonaa haddoo alle idma gacmo furan iyo qiimo macquul ah qof walba u baahan adeegyadaas caafimaad iyo dhammaan adeegyo kale oo la xiriira xaaladaha gargaarka degdega ah wuxuu nagala soo xiriiri karaa numberka ku qoran shaashada waqti walbaba 24 saac oo lagu shaqeynaya haddoo alle idmo dadka ku shaqeynaya waxa waaye waa dad wata boorsooyinkooda dhammaan waxa ugu jira adeegyada caafimaad ee lagu talagalay qof walba oo u baahan in waqti gaaban in lagu shaqeeyo so qof walba waxa waaye boorsidiisa ayuu wataa xaafadaduna kugu imaan doonaa haddoo alla idmo insha allah waa barnaamijaan ugu talagalnay ummadda Soomaaliyeed inay ka faa'iideysato fikradan waxay nagu soo dhacday markaan aragnay baahida caafimaad ee dalka inay aad u badatay aad u maasantihiin muuqaalkan ha la share gareeyo ha la gaarsiiyo qof walba oo Soomaali ah oo isticmaala social media si barnaamijkani ay ugu faa'iideystaan waxaad naga soo wici kartaan numberka shaashada ku qoran mar labaadan ku celina ha la share gareeyo aad u maasantihiin wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh